waxaa loola yaaba ah maanta waaqiceennu meeshuu marayo wuxuu waaqiceennu marayaa in maskaxdeennii ay xiran tahay guurka la guursado intaanu qofkii qaan gaarin eenu 15 gaarin uu guursado muxuu yahay xagga shareecadeena wuxuu yahay nabi maxamed baa sameeyay xalaal waan soo xaaraan nabi maxamed baa sameeyay Aisha guursaday waa dadka ihsaasku ka dhintay waxaan ku qoslaa imaam al-Ghazali markuu arinta ka hadlayo fi kitaab Ihya Ulumuddin hadaladiisa waxa kamid ah uu soo raray wuxuu leeyahay man lam yu'athirhu al-rabi'u wa azharu qofka aysan saamayn guga iyo ubaxyadiisa wal 'ud wa awtaru iyo عودك أما موسيقى إيا لحنكيسا فهو سيء المزاج ما له من علاج وقف بيعدي كلمتين داولها يموي قف بيعدي كلمتين وحنا عن عانسنين وقف حلوة أفكار لو جريي أو يروى خلارتها قف هذا الكمعان إيا جبي كمعان إيا عد كمعان إيا موسيقى معان قف كأي دبيسو وحلقي هذا قف كاس إنو دقيستو محاضرة محاي أورانيسا محاضرة وحو مهرسدا إيادو الحجرة iyadoo sagaal jirana wuu la aqal galay wax dhib iyo ceeb iyo oo ka yimidna ma jiraan wanaag iyo sharaf iyo gobonnimo iyo miisaan ahayn marka manhajka akhri oo kutubta shaafiiciyada akhri oo maraajicda oo dhan waxay ka waramayaan inanta yar hadii la guursado islaanta hadii la guursado quraanka laftiisu uu tilmaamay in yaroo la guursado la furay aayadda sheegtay والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر والله إن لم يحضن عدة بحا أيو لهاي كورني مركاسا وحوري أوريها واوين حاسسك هويوين كواوين عادة أي كرنا ماتي مركا الله فروه عدة بحا ذو صدح بلاد يعني عد كلا قرسان كريم وامد والله إن لم يحضن inanta yar ee la furay iyadoo wali qaan gaarin oo caadadii helina la caadada ku tirsan lahayd way yar tahay ba wali markaas la furay caadadiina ma helin 3 bilood iyana ha tirsato walaal quraanki baa saas xadiidka saxiixana sida yihiin kana boor way buu soo dhajistay maxaa la yeelayaa markaa ajayba shakhsiga bini aadanka ahbaa la yiri marka uu xishoon waayo dee waxba xayawaan kama dhaamo leeyahay muxaadarada kadibka oo beenta wuxuu yaqaan macruuf ninkaas ama gabadhaas jacaylka ka sheekeynaysa ama wadaniyada ka sheekeynaysa ha alla weyn ku heesaysa ha alla weyn intii aamina awood leh ku hees munkar buu yaqaana wadaadka muxaadaraynaya oo nacaybka sheegaya oo isqarxinta sheegaya oo xumaanta ka hadlaya oo nabigiiba injirla ku muxaadaraynaya oo nabigiiba qosqob ku qaar ku muxaadaraynaya qofka la macaan tahay gabadha jacaylka ka sheekeynaysa iyo midda wadaniyada qaadaysa iyo lahankaas macaan uu la falxun yahay qof damiirkiisa dhintay weey qof dhintay wax aad u qaban karto male saxaabadiisa in badan oo kamid ah inay injir gashay saxaaba farabadan inay injirtu gashay oo laga guray oo iska gureen ayaynu haddana haynaa nabi maxamed masaajidkiisa dhexdiisa injir baa dadka fuulaysay mas'alada nabi maxamed nuur buu ka samaysnaa waa khuraafo nabigu wuxuu yimid dad reer ama dad meel degan meeshay qashinka ku shubtaan oo ku daadiyaan uu soo istaagay markaasuu isagoo taagan nabigu kaajay salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo taagan buu kaajay markaasaan ka fogaaday buu ii soo dhawow buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ila aan gadaashiisa soo istaagay nin taagnida ku kaajayo ku kaleedhinay Soomaalidu ma u taqaan gaal bay u taqaan Nabi Muhammadna kama fi sahihayn Bukhari iyo Muslim ugu yaala Nabi Muhammadna asagoo taagan ayuu kaajay wadaadka muxaadaraynaya oo nacaybka sheegaya oo isqarxinta sheegaya oo xumaanta ka hadlaya oo nabigiiba injirla ku muxaadaraynaya oo nabigiiba qosqob ku qaar ku muxaadaraynaya qofka la macaan tahay
gabadhaa jacaylka ka sheekaynaysa iyo middaa wadaniyadda qaadaysa iyo laxankaas macaana uu la foolxun yahay qof damiirkiisi dhintay wey qof dhintay wax aad u qaban karta male allah weyn ninkii aaminaa awood leh ku hees munkar buu u yaqaanaa damiirku markuu kaa dhinto nin baa waxaa la weydiiyey ma huwa alkhudlaan tawfiiq xumadu maxay tahay wuxuu yidhi tawfiiq xumadu waxa weeye an yastaxsina alinsaanu alqabiix wayastaqbix alxasan qofku inuu waxa fiicana la xumaadaan waxa xuna la fiicnaadaan